kulankaani oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta galmudug ayna ku soo bandhigaysay saameynta ay ku reebtay abaartii ku dhufatay geyiga Soomaaliyeed deegaanada maamulka galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug golaha wasiirada maamulada degmooyinka iyo gobolada wasaaradda ayaana ku soo bandhigtay saameynta ay ku reebtay abaarta xoolo dhaqatada iyadoona wasaaradda soo bandhigtay sawirro iyo qoraallo ay buu ka samaysay kaasi oo ka turjumaya in wali ay jirto abaarta isla markaana ay sii dabar go'ayaan xoolaha qaarkood sida lo'da oo sanadihii dambaba gobolada dhexe dhaqashadooda ay ku sii yaraanaysay xildhibaanada iyo wasiirada iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka goobta hadalka ka jeediyay ayaa sheegay in loo baahan yahay soo gabagabaynta abaartan iyo in la helo biyo faya dhowr iyo sidoo kale in la beero dhul daaqsimeed ayagoona sheegay in wali ay jirto saameynta abaarta galmudug anu gudiga abaaraha galmudugna gudoomiye ku-xigeenkiisaan ahaa aday abaartaas markii ay maxaayeen alxamdulillaah Soomaaliya inta badan roob laga helay galmudug waxa ku qaasahayd abaartii galmudug ku koobnayd oo dambeysay oo loo bixiyay hayaan abaarta hayaan galmudug ay maxaayeen qaas ku ahayd oo reer galmudug waa la socotaan inay dawlad goboleedyo kala duwan ilaa deegaamo kala duwan ay kala hayaameen inta waxa ka dheeriya abaartu waxay saameysay xoolihii bay saameysay dhirtiina way saameysay waxay kale saameysay waxyaabihii ku dhex noolaa oo ama xayawaanaadka ahaa ama ugaarta ahaa ee ku dhex noolaa deegaanada ayay saameysay mudana wasiir iyo wasiiro waxaan idin sheegaynaa deegaanada galmudug wali inay sidii abaartu uga taagan tahay oo qaybna waxbaa la helay roob waa la helay laakiin roobkii nusna waa qadiyay nusna waa laga helay marka saameynta abaartuna sidii wali u taagan tahay marka in assessment dheeriya lagu sameeyo waa codsanaynaa wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan ayaa ugu horeyntii mahadcelin u jeediyay wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo uu sheegay in ay qayb ka qaadatay ururinta saameynta baahiyaha jira wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga iyo maalgashiga ee federaalka waxay tagtay maamul goboleedyada kale oo dhan bay tagtay annaga يعني xilliga hadda aan ku jirno waqtiga hadda aan ku jirno anagu beerna ma lihin wabina ma lihin xoolo ku nool roobka ka daa galmudugna waa roobka Soomaaliya ka daa kan ugu yar sidaas daraadeed loodu 40 sano ka hor bay dhamaatay arigii sidaas oo u dhamaaday geelo oo ugu adkaysanka badan leh isaga iyo dadkiiba abaari hadda la soo dhaafay way ku baaba'een Soomaaliduna waa ogtahay شافع شريف محمود كونفور قلب الصومالي تي في عداده